السلام عليكم صاحب بيال محمد صلاح ومع سلامية ليفربول عياريان كرير مصري محمد صلاح ayaa ay soo bixin talaadada warar sheegayay inay dalab ka soo gudbin doonto kooxda Al-Ittihad oo ah dalab waali ah laakiin saaki subax ayaa ay ka soo gudbisay dalab 150 milyan oo gani ah taa oo Liverpool ay soo diiday isla subaxnimadii saakay markii ay ahayd 7 saac waxay soo gudbisay kooxda Al-Ittihad dalab gaaraya 175 milyan oo gani waa ay diiday Liverpool markale si degdeg ah ayaa ay ku diiday dalabkaasi waxayna sheegtay Maxamed Saalax inuu qayb ka noqon doono markale galabnimadii galabta waxay soo gudbiyeen dalab gaaraya 200 oo milyan oo gani oo u dhiganta 226 milyan oo pound marka la eego hadii qiimahaas ay qaataan Liverpool Maxamed Saalax wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka ugu qaalisan ee dunida maadaama kooxda PSG ay ku gadatay Neymar 198 milyan oo gani oo u dhiganta 222 milyan oo pound Maxamed Saalax wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka ugu qaalisan warbaahinadu waxay sheegayaan galabnimadii galabta in Maxamed Saalax uu yimaaday garoonka tababarka ee kooxda Liverpool daqiiqado yar kadibna oo isaga baxay oo ay arkayeen isagoo baabuurkiisa wata taa waxay ka dhigtay in sababtu uu yimaaday Liverpool ay ahayd Maxamed Saalax inuu macsalaameeyay ciyaartoyda kooxda sidaas ay leedahay Sky Sports marka la eego waxayna ka dhigan tahay Maxamed Saalax 200 oo milyan oo gani oo ah kan ugu qaalisan ee dunida inay ka bixiyaan kooxda Al-Ittihad Liverpool lacagtaasi hadii ay qaadato waxay macaashi doontaa lacag dakhli aad u badan laakiin hadal hayntii su'aasha taagan ayaa ah Liverpool hadii ay qaadata ilaa caawa inta ka dhiman suuqa kala iibsiga intuu xirmayo miyay ku soo qaadan karaan ciyaaryahan lafdhabar iyo halbowlo noqon karo kooxda Liverpool maamulka marka la eego faa'iido weyn ayaa ay u tahay in Maxamed Saalax ay ku helaan qiimaha ugu qaalisan ee ciyaaryahan ugu iibsado dunida kubadda cagta laakiin su'aasha taagan ayaa ah